ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa shacabka ugu baaqay inay ku dadaalaan midnimada xilli dagaalo culus ay ka socdaan dalkaasi. Wuxuu sheegay in dalka uu ka soo gudbay dhibaatooyin badan, inkastoo ay dhammaantood isku dayeen inay dib noo celiyaan aynu hore u sii wadno midnimada, ayuu yidhi. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dagaal xambaarsan propagando iyo been lagu furay dalka Itoobiya. Maalmahan waxay lahaayeen wuu baxsaday iyo Addis Ababa ayaa lagu xiran yahay. Kuwa idin weydiinaya ee leh ra'iisul wasaarihi xaguu jira, doonta ayuu saaran yahay ku dhaha. Propagando waxba nagaga qaadi mahayaan, ayuu yidhi Abiy oo wacad ku maray inuu dagaalami doono ilaa daqiiqada u dambaysa. Mucaaradka dagaalka kula jira dowladda Itoobiya ayaa hoos u dhigay wararka sheegaya inay sababi doonaan in dhiig ku daata magaalada Addis Ababa haddii ay soo galaan ama ay la kulmi doonaan shacab cadow ku ah. Dhowr dal ayaa ku booriyey muwaadiniintooda inay ka baxaan Itoobiya, isla markaana dowladda Mareykanka ayaa la baxday diblomaasiyiinteeda iyadoo uu sii xumaaday dagaalka sanad ka socda waqooyiga dalkaas. Dagaalyahanada TPLF iyo kooxda xulufada leeyihiin ee Oromada oo loo yaqaano Ola ayaa toddobaadyadii tegey sheegay inay qabsadeen dhowr magaalo, meeshana kama aysan saarin inay u ruqaansan doonaan Addis Ababa. Dowladda oo beenisay in caasimadda ay halis ku jirto ayaa si kastaba ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, waxaana mas'uuliyiinta deegaanada qaarkood ay shacabka ku weydiisteen inay difaacaan magaalada. Sheekada ku saabsan in dadweynaha Addis Ababa ay si xoogan nooga soo horjeedaan waa mid laga badbadiyey. Waxaa sidaas yidhi afhayeenka TPLF Getachew Reda oo waraysi siiyey wakaalada wararka ee AFP. Addis Ababa waa dheri, dad dana kala duwan leh ayaa ku nool Addis. Sheegashada ah in Addis Ababa ay isu bedeli doonto meel dhiig ku daato haddii aan soo galno waa mid nacasnimo ah, ayuu yidhi afhayeenka TPLF.